متى هون سامينتا أبارو ذلك يكون هنا إلهي أبارتها نجلس وجبي dhibaatayna ugu weyn haysta maanta waa abaarta ilaahay waxaan ka barayna abaarta inaga dul qaado waayo roob degdega ilaahay ina siiyo waayo ilaahay ma garanayna ma roob dii doono ta kale wada hadalkii iyo gorfayntii maxay yeelaa abaarta iyo saameynta ku yeelatay doorashadana sida labadii odayga hore ay u sheegeen waxaan isla qaadanay inay noqoto 10ka Oktoobar labada doorasho kale la saaro oo ay sanad ka dambeeyaan isla 10ka Oktoobar dambe ay noqdaan marka de arinta marka arin la galo dhinacyo badan baa laga eegay komishinkii waa soo galay madaxweynaha soo galay xisbiyadii dantii qaranka markii dhan walba laga eegay wax noqotay in halka dhigno oo duruufaha ku xeeran dhan walba laga akhriyo oo ay noqoto muddo aan kolba la oranintii hore la gaabiyay tan la gaabiyay waxaan rajaynaynaa insha Allah guurto inuu u raaci doonto waana ka codsanayna waa intaas oo qaranka halka isku raacday inay ku ekaato taas waa taa dhibaatada labaad ee jirta waa sicir bararka iyadoo arin miisaankeeda dhibaatada leh laakiin alxamdulillah xalay madaxweynuhu go'aan soo saaray oo si fiican arinta ogaayeen qaaxay wixii laga qabanayo waxay la tahay qaran ahaan waxa uu lagu waajibay inaynu mikrataa madaxweynaha dhammaantan ku wada hawlgalno si aynu arintaana xal ugu helno aqaba xal aad uga baraandegay inuu yahay oo dhinacyo badan taabanaya waxaan qabaaday dhammaanteen taado taageerada in sicir bararku shalay garabtii iyo saaka uu kala bedelay taasina waxay u baahan in talaabo la qaado oo dawladda ay ku qaado waxaan filayaa ganacsaduna inay u dhaganaaglaan doonto ama ay raaci doonaan habka halka qaranku madaxweynuhu soo jeediyay oo danta qaranka waa la wada yahay komishanka waa mahadnaqaynaa walaas badan baa saaraa in badan bay walba daraasad ka eegayeen sidii waxaan soo horgalay garoo mahadnaqaynaa xisbiyada kalena waa mahadnaqaynaa salaaxad iyo maxay inoo dan baa la isweydiiyay oo laga wada heshiiyay arrintaasina saasay ugu dhamaatay insha Allah maanta saydo hirgeli doontaa